daafurka macadkan cilmi baarista amniga Soomaaliya ayaa hirgelintiisa waxa lagu micneeyay amniga Soomaaliya wax badan ayaa laga hadlay sida aad u ogtihiin Soomaaliya waxa lagu tilmaamay ummad fashilantay asaageeda ka hartay xuduudadeeda difaacan weysay amniga muwaadinkeeda la sugi weysay waa arrin aad u xanuun badan in ummadan oo jirto Allah subhanahu wa ta'ala adduunyadan uu ku abuuray in taariikhda madow ay soo marto ah in muwaadinkii amnigiisa la sugi waayo geedka waa geedkii nabadda astaanta macno badan ay xambaarsan tahay waa aqoontii waa geedkii nabadda ee Soomaaliya ee Soomaaliland ay ku guuleysatay inay geedka hoostiisa ay fariistaan Admiral Farax Qare ayaa wuxuu tilmaamay si loo maareyn karo amniga dalka Soomaaliya 12 milyan ee ku sheegay jabjab inta hadda jamhuuriyaddan ku hoos jirtay inta asbaal raba inay walwal la tiraal raba walwal iyo ku jiifan qofku intay walwal qabto waa fikire dhibaatadaas ay xallisay ku fikire waana xalinaysa tuuganimay ku xallee xoog bay ku xallee xumaan oo dhamay ku xallee maxaa yeelay adigu isku madayin inaad fahamto walwalkeeda iyo walwalka silooto marka macadkan waxa la rabaa walwalkaas inuu baaro umada haaya daafurka macadkani ayaa waxa joogay xildhibaano mas'uuliyiin kala duwan iyo qaybaha bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir habeenii maalmoodii waxaan fikirtay waxa weeye waa wadnihii Soomaaliya meeshan barnaamijkan ka muuqda waa dareenkii Soomaaliya waa wadnihii Soomaaliya waa wixii naga lumay waa wixii aan gacmaheena ku burburinay cadawna ka sifaynaystay Soomaaliya waxay tiraahdaa geeda yimaad weyseene gobolkayga ku jira higsigayga Soomaalida aan ka aaminsanahay aan doonayo inaan arko baarlamaanka ugu biiray iyo higsiga amnigu madashan amniga oo macadkan in isla yimaad moodaa horaan waxaan u yiri Soomaaliya dadaasho dilkii uu dhamaado cudurradii aqoonteedu durugto dilkii uu dhamaado cudurradii la dabar jaraan doorbindheer ku eegta waa higsiga macnaha amniga iyadoo nabad la helay dadkii wax bartay caafimaadkii macnaha wada caafimaad qaba wad garan karaysa quruxda iyo macnaha ay leedahay Cabdiraxiin Cabdullaahi Honkabel TV magaalada Muqdisho.